إن أنسود ويو مدحوينها جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مدن مدحوينه مدن يال مدحوينه يال هوري مدن رئيس الوزراء odayada talada waddanka qaybta ugu wanaagsan hayaaye baarlamaanka labadiisa aqal iyo xubnihiisaba salaanta islaamka nagu salaamayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa aan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadana maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna Soomaaliya in aan u hambalyeeno in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen keentay shalay iyo maanta. shalayna laba madaxweyne ayaa isweydaarsaday, maantana labadii unbaa isku noqotay, labadii unbaa isweydaarsatay iyaga oo niyad sami ku jirto, walaalnimo ku jirto, dimuqraadiyaddu sheegayso, soomaalinimaduna ay sheegayso. taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheego. Soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeega oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan. falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeenu leeyahay. waxa aan loo naalloonayayna inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma, gacantiina isku maamula, khayraadkiina la soo baxa, kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uun inaanan la noqon. taasina halgan dheer bay doonaysaa, is-aaminaad bay doonaysaa, isku kalsooni bay doonaysaa. walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto, oo dalkuna marka uu ku yeedho waan sala joogaa, gebigiinnaba in laynaga maqlo ay waajib idin saaran wey. madaxweynaha waan u hambalyeynay, waan hambalyeynaynaa, waan hambalyeyn doonaa. laakiin haddii dadka Soomaaliyeed uu iswada garab taagona tallaabadiisii 10 jeer buu ayuu sii kordhini doonaa. waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh, isaga oo soo maray maxaan ku dhahdaa xukunku waxa uu yahay, isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro, isaga oo garanaya waxa soo socda, sida uu u maamuli doono, sida uu u maarayni doono, sida uu turxaanta uga saari doono,
sida uu uga bayri doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno kalgacal ku hayno waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda Soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno mar kale hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullah mudane madaxweyne Ismaaciil Cumar Gelle uu ku mahadsan yahay khudbadiisa